waxaa gudaha magaalada Cerigaabe xarunta gobolka Sanaag soo gaaray gudida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha baarlamaanka Soomaaliland oo uu horkaacayo gudoomiyaha gudidaasi Mustafa Khayre waxaana ay kormeer ku mareen mashaariicdii laga hirgeliyay miisaaniyadda dawladda ee 2020ka gudidani oo kormeerka ku wehelinayay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Sideber ayaa kormeerkooda ku soo gabagabeeyay ismaha madaxtooyada ee magaalada Cerigaabe waxaana ay halkaasi kaga warbixiyeen ujeedka socdaalka u yimaadeen gobolka Sanaag mashaariicaha oo aan wadanay shaqadoodii aan wadanay iyo budgetkii dawladdu ugu tala gashay aan wadan kontraagyadii dhisay shirkadihii contractors ay qaatay magacyadoodii inaan indhaha ku soo aragno sidii loogu talagalay inay u fuleen insha Allah warbixintan golaha noo wadaagi doona wixii report ay haysan waxaan ku hambalyeyn doona cidii waxa way gudatay waajibka ka soo baxday cidii performance loogu talagalay aan gudinin waxaan insha Allah iyadana la wadaagi doona gudoomiyaha ugu madaxweynaha u duceynaa dhalinyaro cusub waxaan rajaynayaa isaguna inuu dabagalka qayb ku yahay madaxweynaha gobolka weeye inuu isna ka qayb qaato wixii gobolkiisa soo gaara ee mashaariic ah ee miisaaniyadda dawladda laga maalgeliyo inuu ku talagalo inuu sidii loogu talagalay inuu fuleeno uu noqdo waxa weeye mas'uul oo ka rajaynayaa wayna ka go'an tahay dawladahan iyo xukuumadda ahaanba in maxaan ku raahdaa wixii horumarin ah ee gobolada bariga ah maxaan ku raahdaa guud ahaan dalka oo dhan iyo gobolada bariga in la focus gareeyo inay waxaas noqdaan wax raandis leh marka way ka duwan tahay mashaariicii kale ay donors ku bixin jireen tan miisaaniyadda qaranka laga fuliyay miisaaniyadda qaranka ugu filan xukuumadda maanta joogta ugu filan dabagal waayo wixii ay dhistay iyada budgetinkeeda iyo systemkeeda bay soo aad baan ugu mahad celinayaa shirkadii dhistayna wax qurux badan baanu aragnay anigoon ka hor dhacayn maxaan ku raahdaa gudida reportka gudida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka oo ah gudida ugu muhiimsan ee la isu kaashan karo in qaranka la wada ilaashado warsamakaaf Cabdirashiid Aadan Dubjoog TV Cerigaabe.